حسين خليف حاجي جامع وكمل مشرحين تاغن دورشada madaxtinimada dalka Soomaaliya oo lagu wada magaalada Muqdisho dhawaan in ay ka dhacdo ayaa waxa uu booqasho ku jooga magaalada Gaalkacyo isagoo oo soo booqday qaar kamid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo warkan magaalada Gaalkacyo waxa nooga soo diray Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cali musharaxan ayaa markii uu yimid magaalada Gaalkacyo maalin kadib ayaa waxa uu bilaabay inuu kulamo gooni la qaato odayaasha waxgaradka aqoon-yahanada dhalinyarada madaxda maamulada iyo haweenka gobolka Mudug sidoo kale ayuu musharaxan Xuseen Khaliif Xaaji Jaamac waxa uu booqasho ku sameeyay goobaha ay ka yihiin isbitaalka weyn ee gobolka Mudug halkaas uu musharaxu ku booqday bukaanna halkaas ku jira ay ka mid yihiin dadkii ku soo dhaawacmay deegaanka Docmo waxa kale oo uu kulamo la qaatay madaxda isbitaalka iyo dhaqaatiirta ka howlgasha inta kadib ayaa musharaxu waxa uu booqasho ku tagay xaafada wadajir ee maamulka Galmudug waxaana halkaas ku soo dhaweeyay maamulka iyo waxgaradka Galmudug kulan ay ku yeesheen hoteelka weyn ee Ambis ee xaafada wadajir ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda iyo maamulka Galmudug oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ahna kusimaha madaxweynaha maamulka Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka qaar ka mid ah golaha wasiirada furutaankii kulankaasi ayaa halkaasi waxa ka hadlay madax badan oo soo dhaweysay booqashada uu ugu yimid musharax Xuseen Khaliif Xaaji Jaamac kadibna waxa halkaasi ka hadlay musharax Xuseen Khaliif Xaaji Jaamac aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan maanta halkan aan idin kala hadlo shalay bay ahayd markii aan soo gaaray magaalada Gaalkacyo aad baan la soo dhaweeyay farxadii shalay iyo soo dhaweyntii shalay farxadii iyo soo dhaweyntii shalay mid la mid ah baan maanta dareemayaa dareenkaygu aad buu sareeyaa gaar ahaan inaan soo gaaro qaybtan koonfureed ee magaalada Gaalkacyo oo runtii ahayd meel anigu aan ku noolaan jiray markaan magaaladan arday ka ahaa xaafadan waa degan anigu meel inay dhowr blog hadda waxa ay khaldan maabka laakiin Cabdulla Bulxan gurigiisii waxaan u maleynayaa halkan inuu ka fogeyn dhowr blog buu naga jiraa waxaan u maleynayaa hadaan qiyaaso magaaladan Gaalkacyo ma aha xaafadan baan ku noolaan jiray markaan iskuulka ka sii baxayay markaan Gaalkacyo iskuulka ka dhiganaynay Umar Samatar baan ka baxay 77 waqooyi koonfur maana kala lahayn mid baan ahayn buunaga wada ciyaari jirnay shaahan wada cabi jirnay waxaan marka qeyradeeda iyo maskaxdeeda ay hadba masawirku soo saaraya sidaan waagi ahaan jirnay hore waxaan rajaynayaa in ay mar Gaalkacyo saa ku soo noqoto aniga waxaan u ordayaa boss federaalka baan u ordayaa maxaa la yiraahdaa dawladda dhexe ah oo waxaan rajadayda ama fikirkaygu yahay in arrimaha Soomaaliya wax ka qabto hadii alla yiraahdo laakiin ninkan gurigiisa wax ka qabani ma ka qaban karo meel kale ka fog aniga waxaan insha Allah juhdi badan gelinayaa oo insha Allah ku dadaali doona hadii Rabbi talada ka dhigo in aan xoog saaro inay Gaalkacyo ahaato waagan sheegay sida ahaan jiray sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ahna kusimaha madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed waxaan farxad noo ah inuu maanta nala joogo musharax Khaliif Xuseen Khaliif Xaaji Jaamac oo ah musharax Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ama dawladda dhexe raba inuu madax ka noqdo Soomaaliya waxaan leenahay musharax ku soo dhawow deegaanada Galmudug ku soo dhawow wax qabad Soomaaliyeed ku soo dhawow guul inaa heshid baan Ilaahay ka rajaynaynaa waxaan musharaxiinta ugu baaqaynaa inay ku tala galaan in qoqobnaantaas yararka hadii ay guuleystaan inay gobolka ka saaraan hadii Ilaahay Soomaaliya waxay isku bedelaysaa waqtiga dhow ama waqtiga soo socda hadii Ilaahay dawlad goboleedyo waxay noqon doontaa goboleysi bay noqon doontaa ruuxu booqashadii iyo kulamadii uu la qaadanayay waxa uu dib ugu soo laabtay halkii uu ka deganaa magaalada Gaalkacyo oo ahayd hoteelka weyn ee Golden Plaza Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cali Somali Channel Gaalkacyo